kulanti waan meel ka soo joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijkeenu si gaar ugu eegi doona xaaladda dadka naafada ku nool magaalada Muqdisho waxay ka mid yihiin kuwa ugu adag markay timaado dhanka nolosha waxaana la kulmaan daruufo kala duwan ay ka mid tahay xaaladaha ay ku nool yihiin barnaamijka waxaa nagala qayb galaya qaar ka mid ah dadkaasi baahiyaha gaarka qaba ku nool magaalada waxaase ay su'aalo weydiin doonaan madaxda u dhaqdhaqaaqda dadkan baahiyaha qaba sida gaarka ay ugu haysa Abdullahi Xasan Xuseen oo madax ka ah hay'ad u dhaqdhaqaaqda dadka naafada oo Somali Disability Cluster lagu magacaabo ayaa barnaamijka marti noogu ah iyo Aadan Xasan Cali labadooda su'aal ay weydiin doonaa waxaana sidoo kale su'aal weydiin doona qaar ka mid ah dadkan oo halkan nala jooga aad baad u mahadsantihiin Abdullahi markay timaado xaaladaha ay ku nool yihiin dadkan baahiyaha qabo xilligan la joogo waa mid aankii ah runtii aad ayaan ugu faraxsanahay VOA-da fursadan ay dadka naafada siisay xaaladda dadka naafada markii laga hadlo waa bulsho lagu qiyaaso 20% oo haddana ay haysato xuquuq la-aan iyo muuqaal la-aan iyo ka qaybgal la-aan taas oo sababtay in bulshadan qaybaha kala duwan ay ku nool yihiin inay haysato duruufo adag oo dhan walba dhankii noloshii waxbarashadii shaqadii ka qaybgalka siyaasadii dhowridda xuquuqdooda intaasoo dhan waa kuwa dhibaato ka qabo fursado maanta dadka naafada oo u banaan oo iyaga laga qayb geliyo ma ka jiraan dalkan inta badan aadan maxaan ku dar lahayd waxaan ku dar lahaa dadka naafada ah oo lagu qiyaaso 20% inay yihiin inay ka sii bataan maana aysan ka yareen maalin walba dad horle dhaawac noqonay qarax dhacay xabad ku dhacayso meel ay wax u saaran yihiin aysan jirin halgan dheer markaan soo marnay dawladda tan hadda jirto Maxamed Abdullahi Farmaajo oo madaxweyne ka yahay dawladdii ugu rooneed oo nala fadhiisatay ee dhibaatadeena iyo duruufteena haysa aan u sheegnay oo wax naga ogolaatay ay ka mid ahayd waxaa noola ansixiyey in la sameeyo hay'ad naafa qaran soo baas marayeen golaha wasiirada labada aqal ee baarlamaanka ugu dambeyntii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya 31 bishii December 2018 okay oo ku dhuftay waxa hawshaas gacanta ku haysa wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka wasaaradii ay ahayd dadka naafada ah gole naafa qaran ayaa jira golaha naafada qaranka weligeed inay la fadhiisatay xaaladooda ma aysan weydiinin hal qof oo gudoomiye ama laba qof ay wax wareysinaysan naafadii xaaladeeda kama warqabto haddaba waxaan la tayaabsanahay xuquuqdii naafada xaggay saaran tahay haddii dawladdii ka soo baxday hay-addii hala dhisla yiri hay-addii lagu dhawaaqi layahay maxaa duruuf ahaa heesta ma naqaan ilaa hadda waa la taajibsanahay dadka naafada ah nolol adag bay ku nool yihiin waa la garan karaa qof naafo ah oo caruur leh xaas leh oo shaqo aan haysanin duruufta uu ku nool yahay qof kastoo bini aadamka wuu garan karaa marka dadkaas xuquuqdooda meeshii ay saaran tahay ayaan codsanaynaa dawladda Soomaaliyeed aan codsanaynaa Abdullahi waa run sida uu ka dhawaajiyay Aadan Xasan Cali oo kamid ah golaha naafada qaranka madaxdiisa sarsare waqti badan ayay geliyeen sidii dadka naafada xuquuqdooda ay u muuqan lahayd waxayna runtii wacyigelin xoogan u sameeyeen golaha naafada qaranka iyo hay'adaha dadka naafada ay leeyihiin in ay dadka naafada baraarujiyaan ogeysiiyaan waxa xaq ay u leeyihiin iyo waxa aysan xaq u lahayn dadka kale ee shacabka Soomaaliyeed laftirkooda ay ku baraarujiyaan inay ogaadaan waxa ay xaq u leedahay dawladdii ay ku baraarujiyaan taas waxay sahashay sida uu hadda ka dhawaajiyay in la helay aqbalaad iyo la tashi ay dawladda dadka naafada la tashatay maxaa idin roon waxa la isku raacday waxa la isku gartay waxay ahayd in loo dhiso hay'ad naafo loona sameeyo shuruuc waxa la isku raacay waxay ahayd in loo dhiso hay'ad naafada ay leedahay oo heer dawlad ah oo madax banaan iyo shuruuc dadkan difaacda waxaas oo dhan la sameeyay waxa marqaati ah in isbedelka dadka naafada ee dawladda dhankeeda ay ka sameysay oo ah in baarlamaanka la mariyay in golihii wasiirada la mariyay baarlamaanka la mariyay madaxweynaha uu saxay haddana su'aasha mar walba ay dadka isweydiinayaan waxay tahay hay'adii dadka naafada ma loo dhisay gacanta ma loo gelin taas waxa looga fadhiyo waxay tahay inay ka jawaabto xukuumadda golaha wasiirada ayay gacantooda ku jirta hay'adda
khaasatan wasiirada deeqa yaasiin ayay ku jirtaa 14 bilood ka badan meeshaas haddii aan dul istaagno Cabdullaahi maxaa hortaagan cilad farsamo ama mid maamula adinkiiba hawshan gacanta ku hayo dadkan u dooda marka maxaa hortaagan runtii annaga ma naqaano arrinta hadda waxay gacanta ugu jirtaa dowladda way ka soo gudubtay dadka naafada way ka soo gudubtay sharci dejinta way ka soo gudubtay sharci dejinta way ka soo gudubtay madaxweynaha golaha wasiirada ayay hortaalaa waa 5 qofood oo naafaa oo 5 beelood laga soo kala xuraayo aqoon leh waayo aragnimo leh dadka naafada xaaladda ay ku sugan yihiin wax ka bedeli karo waxa loo baahan yahay waana laga heli karaa dadka naafada dad aqoontaas u leh laakiin caqabada jirta ayaa waxay tahay dawladdii miyaanan rabin ma si kale ayaa wax loo wadaa cabashadii dadka naafada weli su-aasha ay isweydiinayaan waxay tahay maxay tahay sababta loo dhisi lahaa inta annaga laftirkeena sida annaga noo weydiinaysin ayaan u weydiinaa dawladda maalin walbo wasiir deeqo hay-adii naafada qaranka maxaa ku dhacay adan inkastoo dadku naafan yihiin oo waxaa raadinaysaan adinkoo naafa haddana dadka aad u doodaysaan in hay-adda golaha naafada adinka dhexdiina aada hanaankii qabaliga ahaa wax lagu soo holo oo 5 beel lagu saleeyo maxaa loo doorbiday waxaa loo doorbiday si cadaalad wax loogu sameeyo sharcigii oo hay-adda lagu dhisi lahaa oo lasoo saarayna waa ayagaaba kusoo muujiyey in 4.5 lagu qeybsanayo 5 beelood min qof 5 guddiga sare laga dhigaayo 10 kale oo daba joogtana min 2 qofood oo mid kasta la daba dhigaayo 15 qofood baa hay-addaas maamulaya ka shaqeynaya shaqaalaheedu ugu sareeyo sidii sharciga hay-adda lagu dhisayo ku qorneed marka ilaa haddeer ma hayno wixii hor istaagna ma naqaano sharcigan muxuu ahmiyad idin leeyahay haddii hay-adda la dhiso maxaa ku qoran oo xuquuqan aad heli doontaa sharcigan sidiisaba wax xuquuq badan oo dadka naafada siinaya ma jirto sharcigan waxa uu dhisayaa hay-adda ayaa dadka naafada wax u qaban doonta waa hay-ad miisaaniyad dawliya miisaaniyad caalamiya iyo miisaaniyad maxalliya intaba ku shaqeynayso waxay awood u yeelan doontaa hay-addaas in dadka naafada ay u qorshayso mashaariic ku kacaysa malaayiin dollar taas oo loogu talagalay dhammaan gobolada Soomaaliyeed in xafiis ku yeelato ay u adeegto bulshooyinka naafada ee ku dhex dhibaataysan dadkaas meel walbana lagu gaaro 15 qofood ee hay-adan madaxda u noqon doono maamuli doono waxay ka kala imaan doonaan dhammaan gobolada dalka Soomaaliya waxayna u adeegi doonaan dadka naafada ee ku nool gobolada ayagoo garab ka helayo miisaaniyadda dawladda ayagoo garab ka helayo deeq-bixiyaasha caalamka ayagoo garab ka helayo bulshada Soomaaliyeed ayagoo garab ka helayo ganacsatada Soomaaliya laakiin haddii aanan hay-addi la sameynin oo dawladdu sidii ugu dhaganaato waxa imaanayso in fursado badan ay helaan miisaaniyadda 2019 oo dhan hay-adan way ka dhimatay expire ay noqotay miisaaniyadda 2020 inay expire noqoto waxay ku xiran tahay golaha wasiirada gacantooda aniga Bashiir Xasan Cabdi la yiraah oo xaasla ah lugnay go'an tahay lugnay jeesay tahay naafada Soomaaliyana kamida naafada Soomaali see wax loogu qaban karaa Bashiir waa soo dhaweynayna horta dalabkiisa iyo codsigiisa waana wuxuu xaq u leeyahay muwaadin Soomaaliyeed waaye asiga oo naafa ah ayuu wuxuu noo sheegay inuu 10 caruur dhalay uu koriyay 4 kamida inay jaamacad ka baxeen ay shaqo la'aan yihiin mas'uuliyadaas waxay saaran tahay dadka masiirka dalka haya iyo hay'adaha maanta horumarka dalka ka shaqeeya maalin walba waxa fursado loo abuuraa 10,000 oo qofood 100 qofood dadka naafada iyo waxa ay dhaleen waa isku xaq Bashiir awooda ka maqan waxay ku jirtaa caruurtiisa ee jaamacadaha ka soo baxay in loo shaqaaleysiiyo asiga iyo dadka la midka ay u shaqeeyaan ay xaq u leeyihiin si ay u kaabaan nolosha qoyska naafada ah mas'uuliyadan marka waxay toos ugu dhacaysaa wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha wasaaradda waxbarashada waxay toos ugu dhacaysaa hay'adaha caalamiga inay jawaab ka bixiyaan waliba sharciga caalamiga ee xuquuqda dadka naafada wuxuu farayaa in dhibaatooyinkan iyo waxa la midka oo dhan la xaliyo bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waxaa la yiraahdaa Xabiiba Cali Abuukar waxaan weydiinayaa waxaa jira haween badan oo naafo ah oo caruur leh oo haddana
aysan waxba qabsan karin oo u baahan in wax loo qabto haddii ay tahay caruurta in waxbarasho loo geeyo aysan awoodin inay waxbarasho geysato oo maanta u baahan caawin ama in wax loogu qabto ay u baahan tahay ama ay tahay mid ay kala tageen odaygii oo caruurta iyada ay ku dhiban tahay ama mid uu odaygii ka dhintay ay tahay caruurta iyada ay ku dhiban tahay sidee wax loogu qaban karaa iyadoo naafo ah caruurteedana ay rabtaa inay kuwo kale aysa ka hormariso ay kuwo lixdooda lixaad qabaan ay la tartansiiso iyadana aysan tabarteeda aysan awoodin sidee wax loogu qaban karaa sidee wax loogu heli karaa ayaan weydiin lahaa waxaa nasiib wanaaga in maanta hooyo soomaaliyeed oo naafo ah ay ku haminayso in caruurteeda aysan ka harin caruurta kaleeto laakiin su-aasha meesha taal waxay tahay baahida ay sheeganaysa iyo dhibaatada caqabada haysato mas-uuliyaddeeda yaa iska leh cidda iska leh ayaa laga rabaa waa hooyo soomaaliyeed oo naafo ah maantay dhashay caruurteedaas inay waxbarto barbaariso horumar gaarsiiso sida hooyada kale aan naafadeen ayay ku haminaysaa mas-uuliyadda meesha ka maqan waxay tahay adeegii waxbarasho adeegii caafimaad adeegii horumareed inay hesho waana mid ka mid a qodobada ku qoran sharciga caalamiga xuquuqda dadka naafada ee dowladda soomaaliya saxiixday cali jamaal cabdilaahi waxaa jira naafo badan ayaa wadanka muqdisho joogta dhaawacooda iyo dhimashadoona waa iska danamarayaan waxaad moodaa dadka naafada in la iskaba ilaabay oo aan dadba loo haysan hadday xaquuqu tahay iyo hadday xaquuq gaar tahayba marka waxaan loo baahan yahay oon dhihi lahaa sidee dadkaas naafada ah loo daryeelayaa xaggee xaquuqdoodii jirtaa yaa la weydiinayaa ilaahay ma ka suga yaa ka mas-uul ah runtii mas-uuliyadda iyo walaayadda shacabka soomaaliyeed waxay saaran tahay nidaamka dawliga ee dalka ka talinaya oo ballan qaada qofka naafada iyo midka aan naafada isku si inay xaquuq helaan waxyaabaha ugu badan ee soo laalaabanaya ee hadda dadka naafada ka soo baxay waxaa ka mid a in dowladdii ay waxqabato laakiin waxqabadkaas aysan dadka naafada ka mid ahayn in waxbarasho la bixiyo adeegyo shaqo la bixiyo adeegyo horumareed ay dowladda bixiso haddana aysan dadka naafada fursadahaas qeyb ka ahayn si marka loo xaliyo su-aalahan soo noqnoqonayo mar walba waxaa loo baahan yahay in ay dowladda xaqiijiso xaquuqda aas-aasiga ee dadka naafada ay ku leeyihiin bulshada soomaaliyeed oo ah 20% boqolkiiba sida sharciga caalamiga ee xuquuqda dadka naafada sida dastuurka uu qabayo inaan dadka lagu kala takoorin naafanimo iyo jinsi iyo waxa mid lamid ah qodob kamid ah dastuurka uu qorayo sida shuruucda kale oo dadka sida shuruucda kale oo dalka ay qabaan dowladda waxaa la rabaa inay hubiso gaaritaanka dadka naafada baahiyahooda in la xaliyo magacayga waa cumar cabdi cumar dhibaatada faraha badan ee naafada haysata oo ay hadda noogu daran tahay sharcigii madaxweynuhu hortanada ku saxeexay 2 sano ka hor ilaa hadda meel uu caga dhigay aynaan hayn maxaa nalooga qancin la-yahay maxaa naloola tashan la-yahay maxaa naloola hadi la-yahay cumar cabdi wuxuu ka tirsan yahay guddoonka sare ee golaha naafada qaranka waana nin 10 sano ka badan hawshan kusoo jiray dadkii waqti badan geliyey wuxuuna ka mid ahaa dadkii uu madaxweynaha hortiisa sharciga ku saxiixay uu la hadlay su-aasha maanta uu weydiinayna waxay tahay sharciga hortiisa uu madaxweynaha ku saxiixay halkuu ku dambeeyey meesha uu ku dambeeyey in la isweydiiyo 5 qofood oo lasoo magacaabo oo la heli karo muddo 14 bilood inay ka maqan yihiin inay isweydiiyaan waa waxay xaq u leeyihiin arrintaasna waxay toos mas-uuliyaddeeda u raacaysaa wasiiradda haweenka iyo xuquuqul insaanka deeqa yaasiin oo ku dhaaratay oo ku faantay oo wax walba sheegtay in ay dadka naafada wax u qaban doonto waxaan u baahannahay wasaaradda in ay sheegto in arrinta naafada ay wax ka qabanayso waqtina u yeesho ama inay ku fashilantay ay wax ka qaban karin magacayga aadan xasan cali waaye waxaan ka mid ahay golaha naafada qaranka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka waxaan weydiinaynaa sharcigii 31 bishii December 2018 madaxweynaha saxiixay ee lagu dhibay gacanta lagu geliyay waxa ku hor istaagan ilaa hadeer aad u dhaqaajin laadahay inaad naga qanciso ayaan ka rabnaa
haddii aadan waxba ka qaban karin oo hawshaan si kale ay kugu fashilantiin aad cadaysidoo tiraahid aniga waxba waa ka qaban waayey intaasaan kaa codsanayna intaas ayaan kusoo koobayaa barnaamijkii sida gaarkeen ugu eegeyna xaaladda dadka naafada ku nool muqdisho barnaamijka waxaa marti ku ahaa oo nagala qayb galay cabdulaahi xasan xuseen oo u oleeya arrimaha dadka baahiyaha gaarka qaba iyo aadan xasan cali sidoo kale waxaa barnaamijka marti ku ahaa oo ka qaybgalay su-aal weydiinayay qaar ka mid a dadka naafada iyo golaha naafada oo halka nala joogay aad baad umahadsantii dhammaantiin waxaan isku daynay dhegeystayaal in wasiirka xuquuqul insaanka iyo haweenka deeqayaas inaan la xiriirno si ay eedani uga jawaabto balse numay suurgalin marka ugu horreyso ay ka hadashana waan idiin soo gudbin doonaa idaacaddeenii fiidnimo intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa